wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa bulshada Soomaaliyeed la wadaagay in dhawaan la qabanayo shirweynaha qaran ee waxbarashada ee 2026 shirkaan oo socon doono muddo 4 maalmood ah waxa uu bilaabanayaa 8 Febraayo 2026. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa farxad weyn u ah inay iclaamiso qabashada shirweynaha saddexaad ee shirweynaha qaran ee waxbarashada. Shirweynahani waxa uu imaanayaa 3 sano kadib shirweynihii labaad oo lagu gaaray go'aano iyo talooyin wax ku ool ah. Wuxuu shirweynuhu dib u milicsi ku sameyn doonaa talooyinkii iyo soo jeedimadii shirarka iyo warbixinadii ka soo baxay wixii ka qabsoomay guulihii laga gaaray caqabadihii yimid iyo gaabisyadii ka jiray meelahaas. sidoo kale shirweynuhu waxa uu qiimeyn guud ku sameyn doonaa xaaladda waxbarashada ee dalka gaar ahaan dhanka baahinta waxbarashada iyo gaarista dadweynaha, tayeynta waxbarashada iyo isbedelada looga baahan yahay iyo horumarinta maamulka waxbarashada. ugu dambeyntiina shirweynuhu waxa uu awood badan gelin doonaa xal u helidda caqabadaha ku gadaaman baahinta iyo tayeynta waxbarashada iyo horumarinta maamulka. Shirweynaha waxaa ka soo qaybgalayo qaybaha kala duwan ee bahda waxbarashada heerarkeeda kala duwan, sidoo kale daneeyaasha waxbarashada ee bulshada Soomaaliyeed ay ku jiraan waalidiinta, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo khubaro ku xeel dheer dib u dhiska waxbarashada. Shirweynaha saddexaad ee horumarinta waxbarashada qaranka waxaan u rajaynayaa guul iyo ka soo qayb